السلام عليكم maanta kaalay dadka kala baro qaasatan dadka iska daba wareejiya oo maaragtay responsibility inay qaataan jeclayn dambiga adiga kuu saarinaya markaa aamusaya marba dhinac kuu rogaya qaybahooda kala duwan oo dhan aan ka hadlayna ka faa'iideyso videogaana save garayso arrintan dad badan ay xanuujisaa please dhageyso waa silent treatment alda qofki inuu kaa aamuso suu kuu dareensiiyo dambi inaa gasha ama qalad aa ku jirtid maaragtay laba kelmada lagu jawaaba ayaa ma dhanaa laga aamusaya waqtiga lagu imaan jira laguma imaanayo qofkaas aa aragtid inuu aamuso sida ilmaho kale loola dhaqmaa ilmaha yaryarka markii la tababarayo maaragtay way isku kaawaalayaan way xanaaqayaan xagga istaagayaan discipline ta daarabti inaad bartid inuu xagga istaagay inuu aamuso haba dareensiinba noloshaada caadi u wado si kasta uu dambi qofkaas kuu dareensiiyo aamusnaan maxaa la aamusan tahay maxaan kaa sameeyey maxaa kana hadhihin oo aamus caqli daradooday ka daba tagayaan marka qof gardarro kaaga aamusaayo cashiraa la baraayay maanta dhan lagama daba waa iga aamusay intaa soomaalina iga aamusneed oo soo anigu saas kuma jecleen haddaa tiraa waxaa siinaysaa energy uu taas markasta kugu sameeyo marka doqonnimo aad u weyn waa qof aanan hadli karin oo aamusnaan raba inuu isticmaalo haddii lagaa qaldamay si nidaama u hadal saana ay dhibtay waxaana markastaan dhibsadaa ma ka wada hadalnaa qof caqli leh ee rabo ee ku rabo ee maaragtay aanan rabin inuu ku gubo kaama aamusaayay xuluulu la imaanaya meelaa la wada fariisanaya silent treatment tan dad badana isticmaala iska jir jacayl badan aa lagu tusinaya ilaa aa qofkaanita aa ka maarmi weyso hadhowtina control uu ku bilaabaya badana maaragtay long distance dadka saasaa lagu sameeyaa gabar wadan ka shaqeynaysa ama wiil nolol adag ku jiro maanta dhan maaragtay shaqo adag wado qof kala baranaya wadan kale ku nool jacayl xadaafa leena qofka wadanka kala joogo waqti uu hayaa jacayl xadaafa una kelmaad una weligiis qofkaan maqlina la maqalsiina hadhowti waxaan ii sameey waxaan ii soo diray inta igee qofkii xakumaadii oo dhan aa ka tagaysa marka haddaa xaaladaas isku aragto qofkaan aada ka maarmayn jacayl aad u tiro badan uu ku tusiyey aad rabtid mar labaad inuu ku tusiyo qofku waxaas wuxuu kuu tusinayay inuu kusoo xerogeliyo maantana controlkaa ku bilowday xaaladahaas waxaa looga bixi karaa inaad fahantid yaa qofkan aad baartid ma ku jecel yahay ma sameeya mase dantuu kugu jecel yahay dantaas uu kugu jecel yahay haddaa ka hor istaagtid cirka iyo dhulku isgelinaa qofkaas adiga kuma jecle danaha u qabanaysid uu jecel yahay soo socota dad badan oo daciifiina isticmaalaan inay maaragtay ii sheeg wax alle waxay dareemaan ay ku dhahaan adaa u sababa murugadan inay igu dhacdo adaa u sababa dhibaatadan inaa gala adaa u sababa saaki inaa waxaan sameeyey guilt trip inaa la dhahaa bini aadankaas wuxuu ku dareensiinayaa wax kasta uu dareensan yahay inaa adig u sabab tahay adig waxa u sabab tahay male qofkan asaa raba inuu saas dareemo